السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولي دمانتين مالك ستو عالم كاد كجوكتان بسكسو نقد وناكسن لب iyo dhadig basharka dunida jooga dhammaanteen waxaynu ka simannahay doonitaanka qof kasto ina kamida sidii uu u dhisan lahaa nolol u qalanta laakiin meesha bini aadamku ay ku kala baxaan ama ay ku kala tagsan yihiin waa dhinaca dabeecadaha haddaba waxaan maanta kula wadaagayaa 7 dabeecadood oo qofka ku kaalmeeya sidii uu u gaari lahaa nolosha uu rabo intaanan 7 dabeecadood u gudagelin horta waxaad fahantaa noloshu sideedaba waa kajar iyo kudar ama kudar iyo kajar hadba ka rabtid ka dhig waxa qasab lagama maarmaana kugu noqonaysa in naftaadu ay aqbasho oo fuliso dabeecadihii hore ee kharibnaayad lahayd kuwa noloshaadu sida hadda ay tahay ka dhigay inay horta meesha ka baxaan oo ka jarto dabeecadahan cusubna aad ku darto dadka badankoodu sababaha ay dabeecad cusub noloshooda oo dhaqan wanaagsan oo naftooda wax kaga bedelayaan noloshooda horumar ay ku sameynayso ay u lahaan waayaan ama ay ula qabsan waayaan waa dabeecadihii hore iyo kuwan dambe ayuu rabaa qofku inuu isku wado waxa marka qasab kugu noqonaysa in dabeecadihii hore meesha aad ka saarto si dabeecadahan cusub ee dambe ay noloshaada isbedelka tarabta kugu rumeeyaan haddaba dabeecada kubada kugu bilaabaya waxay tahay telefoonkaagu yuusan ku mashquulin haddaadan lacag ka samaynin marka wuxuu ganacsi uu yahay wax la fahmi karo dadku siday u badan yihiin 95% 98 waagu markuu bariyo intaysan alxamdulillah oran intaysan cadayan intaysan qubaysan intaysan tukan intaysan biyo cabin waxay ka bilaabaan telefoonka guul darrada maalintaadu waxay ka bilaabataa waa telefoonka adigu balna fahaantaada fiiri markaad hurdada ka kacdo intaadan sariirta ka degin telefoonkaaga markaad ka bilowdo video sidoo kuugu dhiibayo ba xaalado badan waxa dhacda saacad 2-3 dadka inta ka badan qaar inay ku dhaafaan adoo dareenkaaga dhami uu qasan yahay oo telefoonkii ka daalay ba waxa laga yaabaa banaanka inaad markaa u baxdo haddaad cadayan ka bacdina canjeero saliid iyo sonkor iyo subag uu ka buuxad isku ridi himadaado dhami hoos bay u dhici energy badan kuguma jiro maxaad samayn dib baad u soo noqon telefoonkii joodargii baad tagaysaa haddana waad isdhigi telefoonkii barti baad ka bilaabaysaa maalintaadoo dhammi iyadoo jahawareer ah bay kuu bilaaban iyadoo shalayta ah bay kuu dhammaanaysaa waana xaqiiqo in dad badan ay ku adkayd haddana ku adagtay barrina ku adkaan doonto in naftooda ay tarbiyadeeyaan in naftooda ay ka xakameeyaan telefoonka iyagoo ay soo iibsadeen ha u ogolaanin in telefoonka caaga ee adigu aad lacagtaada kala soo baxday ee aan noolayn inuu ku gumaysto waxyaabaha internetka ku soo dhacaya marar badan marka aad daawato kuwa badan baa niyadda xataa ka jabinay waagu markuu kuu bariyo tusaale ahaan waagu markuu kuu bariyo wixii ugu horeeyad aragtayba waa wiil adiga kolamida oo lacag badan oo kaasha gacanta ku sita oo baabuur qurxoon wata oo faanaya see dareemaysaa bay kula tahay waad isquursanaysaa marka tusaale ahaan aad gabar tahay oo aragta gabar ka qurux badan labiska ay wadato nolosha ay ku nooshay meesha ay joogto maalintaadu bal ii sheeg sidee ku bilaabanaysaa maalintaadu dhan waa jahawareeraysaa adoo naftaada isyasaya adoo naftaada liidaya adoo naftaada quursanaya adoo aan isu haysan inaad ba wax u taagan tahay wax jiraba inaadan ahayn adoo aaminsan baad sariirta ka degaysaa mid labaadna waxay tahay go'aan kasta noloshaada wuxuu u baahan yahay go'aankii aad ku fulin lahayd tan dambe way tan dadku badi ay ku fashalan yihiin tan dadku badi aysan ku baraarugsanayn waayo way sahlan tahay inaad wax qorto wayna sahlan tahay in naftaada aad ugu sheekayso wayna sahlan tahay in xataa marmarka qaar dadku ay ka maqlaan inaad waxa go'aan ka qaadatay laakiin haddana dadku siday u badan yihiinba waxay go'aan ku qaataan ama ka qaataan waxa laga yaabaa inay dhaqso dib ugu laabtaan waayo go'aankan labaad ma jiro go'aankan labaad waa taako haddii go'aankan labaad aad hayso way sahlan tahay go'aan kasta oo aad qorto ama aad tiraahdo inaad fuliso tan dambe haddaan lagu baraarugsanayn waxa inta badan dhacda oo mudan qofku inuu ka digtoonaado kalsooni beenaadka naftu ay ku geliso marka ay wax qabad noqoto tusaale ahaan waxaad hadda samayn karto ba naftu waxay kula bari baad samayn bari waad qaban doontaa isweydiin marka aad halka taagan tahay bari xageed ka keeni doontaa awoodda aad ku samayn doontay hadda la'dahay xagee kaaga imaanaysa yaa kuu soo sida ma safar bay ku soo jirtaa awooddaasu caqligaasu ma lagu soo diray boostadu yaala waa soo socda waa lagu keenaya ma jiro kalsooni beenaadkan way kan sida aynu u badannahay nolosheena sababta ugu noqda in wax kasto aynu go'aansanaba inaynu samayn kari weyno waayo baridu markay timaado waxay la imaanaysaa wajigeeda waxay la imaanaysaa caqabadeeda waxay la imaanaysaa dhibaatooyinkeeda waxay la imaanaysaa caajiskeeda maalin walbaaba waa baal kale cusub baalka kale cusub waxa ku yaala ma taqaanid
haddaad baranaysaa waxaana la yidhahdaa qofka biniaadamka maalin kasta ilaa 35,000 oo go'aan ka badan buu gaaraa laakiin maynoo muuqataa 35,000 oo go'aan maya dhowr go'aan baa laga yaabaa kuwa xataa laftigood inaad go'aan u arkin baa la dhici karta haddaad shaqo aadayso haddaad wax baranayso intuba waa go'aan haddaad seexanayso waa go'aan haddaad qof dulminayso waa go'aan haddaad qof xamanayso waa go'aan haddaad khayr samaynayso waa go'aan haddaad shar ka talinaysana waa go'aan wax kastoo noloshaada maalinta aad qabanayso go'aamada dhammaantood aad gaaraysaa kontroolkaagay ku wada jiraan qof mustaqbal kuu soo socda iyo qof hadda adduunka dul jooga oo mas-uuliyadda marna laga sugayo inuu kuu qaadana ma jiro mar haddaad taa ogaato naftaadu inay adiga keligaa ku sugayso unbaad ogaan haddii ilmo yar oo miskiin ah oo baahan oon dhar gashanayn oo meelu seexda lahayn oo agoon ah oo rajo ah oo cidlo taaganaad arki lahayd see dareemi lahayd waad ka nixi lahayd bini'aadamka qof kastoo arkaa oo damiir ku jira waa damqan lahaa sax haddaba naftaadu taa waxba kama duwana waayo go'aankaagiioo ku hor yaalla ayaad haddana ku hor gowracaysaa wakhtigii waxaad qaban lahayd oo dhan dib baad u dhigaysaa wax kasta oo dantaadu ay ku jirtaba waxaad u aragtaa in ay adag yihiin inay qallafsan yihiin laakiin waxaad ogaataa nolosha ku sugaysa ayaa mar walba ka daran oo ka qallafsan haddaadan adigu go'aan ku qaadan inaad noloshaada beddesho inaad dantaada garato inaad wixii dantu kugu jirta aad u degdegto waxaad la noolaataa ood ku baraarugsanaata shayba shayga uu ka wen yahay nolosha aad raadinayso go'aankiisuna waa ka adag yahay go'aankiisu waa ka culus yahay go'aankiisu waa ka dhib badan yahay laakiin dhib kastaba waxaad ogaataa waxa aad tiigsanayso iyo waxaad nolosha aad ka rabto iyo riyada kuu rumoobaysa iyo farxadda ka dambaysa iyo guusha aad naf ahaan dareemi doonto inaad gaartay ayaan wax la siista lahayn midda saddexaadna waxay tahay beerta maalinta la beero miraheeda lama gurto tan haddii si kale hadalkan kuugu dhigo waa waxa degdega la yidhaahdo iska ilaali degdegu dad badan buu sabab wuxuu ugu noqday noloshoodu inay kharibanto in baalal fara badanoo noloshaada ka mida aad dul marto dul istaagto mid walbana isagoo qabya aad ka tagto waayo naftu waxaa u sahlan inay xukunto shaygani inuusan shaqaynayn sababaha uusan u shaqaynayn ayaa ka xoog badan sababaha uu u shaqayn karo waxaa ka mida shaygaasu inuu kuu shaqeeyo ama sidii aad rabtay ay kuu noqoto inaad dulqaad iyo samir lahaato in shaygii aad maalin walba joogtayso in wixii aad ku celceliso in adigu naf ahaantaada aad isbeddesho telefoonkaagu way dhici kartaa mararka qaar inuu ku yidhaahdo inaad update samaysaa muhiim ah ama mararka qaarkood inuuba kuu shaqayn waayo softweerada ku jira mid ka mid a haddii aad update ku samayn weydo haddaad updatekaa samayso telefoonku sidii hore ku noqonaya ama kaba fiicanba xaaladaha qaar adigu bal ka warran marka naftaada telefoonkan cid baa lacag ka samaysa cid baa qutulyoonkooda ku taagan tahay dad baa noloshooda oo dhan ay ku tiirsan tahay in ay wanaajiyaanna ay micnaheedu tahay in noloshiisa uu wanaajinayo bal ka warran adigu markaad adiga u maqan tahay adiguna aad adiga ka jiifto markaad is-sharfi weydo markaad isqiimayn weydo ilaahay siduu kuu sharfay adaa hoos uga soo dhacaya maskaxdan baa noolaha dunida joogoo dhan lagaaga duway haddana maskaxdaadii waad ku khasaartay caafimaadkaagii waad ku khasaartay dhallinyarinimadaadii way khasaaraysaa maalin walba wakhtigii waa ku dhaafaya cudurdaaradu intii way ka sii badanayaan maalinba maalinta ka dambaysa noloshaadu sidii hore way ka sii xumaanaysaa go'aamadii iyo wixii aad naftaada ku bedeli lahayd iyo sidaad naftaada ka dhigi lahayd doorashadeeduna cidday u taallaa waa adiga haddaad adigu kacdo oo naftaada aad garato ilaan dad fara badan maanta soo ma jiraan oo dhallinyaro ah oo xooggoodii dhammaystiran yahay oo caqligooda iyo xooggoodu wuxuu gartay oo keliya inay islaan miskiina oo suuqa ka soo shaqaysatay oo maanta dhan laga yaaba inay suuqaa fadhiday dhowr shilimaad ay soo urursatay intuu waddada qori ula istaago inuu tuug noqdo oo ka qaato sharaf dhaca ka weyni maxay tahay in magacaagu uu tuug yahay cid dadkoo dhammi xataa yay ku ogaan inaad adigu naftaada og tahay tuug waddooyinka fadhiista oo dadka dhaca ayaa ceeb kuugu filan inaad xataa ku haminaysa inaad bini'aadam kala dhacdo meeshaad shaqaysan lahayd iyaguba way shaqaysteen iyaguba go'aankoodii ku keeneen iyaguba kartidooda ayay ilaahay la kaashadeen adigu intaba waad haysataa laakiin waxaad door biday inaad tuug noqoto inaad dadka dhacdo inaad meelaha u istaagto meeshii caqligaagu ay ahayd inaad naftaada kacdo oo aad xisaabtanto intaan ilaahay lagu horgeyn oo aan lagu xisaabin midda afraadna waxay tahay maalin kasta waxaad xoogga saartaa 3 shay kan koobaad waa cibaadada kan labaadna waa aqoon oo inaad wax barato xirfado barato inaad aqoontaada kor u qaado inaad cilmi raadiso inaad maalin walba wax baranayso kan saddexaadna waa lacag way dhici kartaa dadka qaar inay yidhahdaan lacagtu muhiim ma ahan waana laga yaaba dadka qaar inay yidhahdaan cilmi maadigan iyo barashadiisii kollayso kama dhiman doona muxuu taraya warqad adduunka iska taalla unbuu noqon doonaa
xagga cibaadada markay noqotona qofka sidaa oranaya ama dareensan waxa laga yaabaa inuu iska daba meereysanayo cibaadada iyo waxa uu la yimaada ay jajaban yihiin oo xataa uusan aqoonin wuxuu rabbigii ku caabudayo waxa laga yaabaa calaamatu su'aal meelo fara badan inay saaran tahay haddaba waxaan rabaa inaan ku dareensiiyo oon rabaa inaad fahanto cibaadadu mushkiladaha adduun iyo kuwa aakhire xal u tahay ilaahay marka lagu soo hor istaajiyo adoo cagcad oo qaawan oo adduunkii waxaad soo tabacdo dhan aan waxba ka sidan oo buriye qab ah marka lagu weydiiyo bal ka waran ama marka halka istaagtay kitaabkaaga lagu kala furo waxa aad ugu aqoon yar tahay oo kula liitay adduunka markaa joogto bal hadduu noqdo rabbigii ku abuurtay ka waran waa laga yaabaa inay hadalkaasu aad kuula weyn yaho tirada anigu qof muslimaan ahay ilaan dad badan baa saa ku dooda waa sax muslim baa tahay laakiin micnaha muslim horta muxuu yahay isaga laftigiisa u baahan inaad fahanto ma fahansantahay horta waxa uu yahay inaad adduunkan 18 sano 25 sano aad soo noolayd 3 sano 4 sano shukaansiya waa laga helayaa kitaabkaaga laakiin 3 sano iyo 4 sano kitaabkaaga laguma hayo ood rabbiga ku abuurtay ku baranaysay hadda maanta cudur daarro fara badan baad haysataa laakiin ma kula tahay inay aakhiro iyo ilaahay markaad soo hor istaagto ku shaqaynayaan youtube-kaasaad ka baran kartaa internetkii baa wax walba waa laguu sahlay xujo kasta oo maalinta qiyaamo marka aad timaado cudurdaar aad bixin lahayd ba hadda maanta kugu oogan tahay quraanka waxaad la baran la'dahay ma kibir baa marka waa laga yaabaa tara maya quraanka iskala weyn waan jeclahay haddaad jeceshahay ficilkaaga laga arki lahaa ma taqaanide waad baran lahayd aqoonta marka ay noqotana waxyaabo badan oo baahiyaha bini aadamka aad marti uga ahaan lahayd ayay kaaga filnaan kuma lihi aqoonta waad wada dhamayn oo wax walba adduunka waad aqoon qofka bini aadamka ugu caqliga badan uguna aqoonta badan ma taqaanaa waa qofka waxa uu yaqaano dhibic u arka inta ka maqanay cilmi ahna u arka inay badweyn tahay hadduu qofku marba yiraahdo wax walba waan aqaanaa wax walba waan ku fiicanahay meel walba hadday diin noqoto hadday dhakhtarnimo noqoto hadday waxyaabaha kale cilmiga faniyada kala duwan ee adduunka ka jiray noqoto kulli qof faraha la geliya haddaad aragto ood moodin wax ka yaqaan waxba ma yaqaan qofkaasu adigu marka in wax lagu weydiiyo iyo inaad adigu qof kastood aragtaba wax weydiisatay baa sharafa waxaa sharaf in adigu wax lagu weydiiyo marnana kuma lihi aqoontoo dhan baad adigu koobi waxaad koobaysaa ma jiro adduunkan adoo wax badan weli kuu dhiman yihiin baad ka tegi doontaa sidii kuwii ina ka horreeyba uga tageen markay noqoto lacagtu maalin dhaweyto waxaa jiray videoyadeeda ka mid oon ku arkay comment qof uu bixiyey oo yiri macnaha waxaa tiri lacagtu farxad ma keento bal aan aragno haddii aad deyn qaadato bal lacagtu inay farxad keentay in kale markaasaad kala ogaan adigu comment sidaasaan arkay laakiin waxaan rabaa inaan idhaahdo lacagtu sideedaba mushkiladay xallisaa ee farxad ma keento mushkilad kastoo noloshaada la xalliyaana micnaheedu ma ahan mushkiladaasu inay meesha ka baxday inay farxadi kuu bedelayso lacagtu waa warqad waxyaabaha kala duduwane malaayiinta dunida yaalla say jirkaaga bannaanka uga yihiin kaaga baxsan yihiin bay iyaduna kaaga baxsan tahay tusaale ahaan haddii 2 milyan oo warqadood lagu dhiibo oon ka wada 2 milyan oo dollar baa lagu siin baadiye cidla ah oon magaalo lahayn oo baabuur lahayn oo waxba lahayn baa lagu geyn lacagtaasu farxad intee leeg bay ku siin kartaa bay kula tahay kuma siinaysa farxad waxaaba dhacaysaba ugu dambaynta adoo lacagtaa 2 milyan oo dollar ag fadhiya inay naftu macaluul kaaga dhacdo kadibna la yiraahdo hebel milyaneer buu ahaayo baahi buu u dhintay wax la yaab badan weeyso maan haddana markaad dhinaca kala fiiriso mushkilad kastoo adduunyada jirta waa tusaalaha labaade lacagtu xal uma ahan haddii maanta in lagaa rido intaasoo lacaga haddii la dul saaro waxay doontabaan cirka iyo dhulka lacag buuxisaha haddii la dul saaro ishaa ma kuu soo celin kartaa kuma soo celin karto haddii caafimaadkan aad haysata rabbi uu kaa qaado kuuguna talagelin adduunkoo dhammi isu tago ma kula tahay inay lacag caafimaad kuu soo celin karto maya kuwa badanoo lacag haysto waxaa jira cuntada ay ka dhadhan xun tahay bay cunaan haddaba lacagtu waxyaabaha qaar nolosha xal waa u tahay booskeedayna leedahay laakiin ujeeddadaada oo dhan noloshu waxay kaa kharrimaysaa markay lacag uun raadinteeda noqoto sidaa doontidba ku keen waxaa laga yaabaa mararka qaar inay qofka la gaarto inuu xaaraan ku keeno uusan kala jeclayn siduu ku helayo aakhiro oo dhan warkeeda iska daa anigo adduunkan baan noolahay hadda aan noolaado aakhiro ilaahay siduu yeeli doono isagaa oge saas dad badan baa ku nool haddaba muhiimaddu waxay tahay lacagtu mushkiladaha jira adduunyada qaar ka mida xal waa u tahay taana micnaheedu ma ahan in mushkilad kastoo meesha ka baxdaba ay farxadi kuu bedeli doonto culays kaa degay wuu jira laakiin farxad dhab ah oo la taaban karo oo qalbigaaga saamayn xoog leh ku yeelata muddo aad u dheer oo lacagtu ay ku siin kartaa laakiin ma jirto midda shanaadna waxay tahay shaqayso adigoo goolashaada kale ee noloshana wakhti siinaya
tan micnaheedu waa waqtigaaga sida dadku ay in badan yiraahdaan waqtiga maare laakiin waqtiga ma maareyn kartid waxaad maareyn kartaa waxa waqtiga aad ku qabanayso waxaad maareyn kartaa waa naftaada waa noloshaada dhaqdhaqaaqaaga laakiin si kasto aad yeesho miyaad saacad wax ka bedeli karaysaa 60 daqiiqo way hadda miyaad daqiiqad uun ku dari karaysaa ama ka dhimi kartaa waa maya saacadii uun bay ahaanaysaa haddaba waxa aad qabanayso noloshaada yeysan uun noqon inaad baxdo soo shaqayso kabacdina guriga timaado telefishin iska daawato ciyaaro daawato iska sheekayso kadibna meeshii haddana aad maalinta ka bilowdo oo noloshaadoo dhanba aad cid kale shaqaale u ahaato ogow qof kastoo shaqaale u tahay riyadii nolosha uu lahaabaad u rumaynaysaa laakiin adigu riyo kasta oo aad leedahay waxa aasaya waa markaad soo shaqaysato oo biilkaaga soo dhacsato waqtiga kuu soo hara maxaad ku qabataa dadka horumarka gaara waxay ka fakaraan markaan shaqo ka baxo taa micnaheedu waa noloshayda kiradayda telefoonkayga baabuurkayga waan dabaray meel baan saaray laakiin nolosha inta ii dhiman ma qof bini aadam aan ugu shaqaynaya waqtiga waa lagu hayaa waa lagu maamulaa waxaan garanayaa dad badan oo maanta aan kulli inta ka garanay dhowr qof oo maanta wadankii jooga oo YouTuber ah oo waxaan garanayaa dad Mareykan jooga ka lacag badan isweydii marka maxay tahay farqiga labada qof kala duway waa qof walba himadiisa waa laga yaabaa markaad damacdo YouTube inaad bilowdo inay wax weyn oo adag kula tahay laakiin sida hadda adiga ay kuula adag tahay bay qof kastaba ula adkayd laakiin qof walbaaba wuxuu ka fakaraya meel fog adu waxaad ka fakaraysaa berri waxaad ka fakaraysaa commentiga negative-ka lagu soo qorayo waxaad ka fakaraysaa dadku siday ku arkayaan waxaad ka fakaraysaa bini aadamka kale saameyn ma kula haan doontaa mise waad labayn adoo saa isaga daba meeraysanaya waqtiguna ku dhaafaya maalin walba waxaad heli doontaa adoo 30 40 50 jira oo waxba haysan cimaamad halkan isaga ka saaran tahay garabka macna cimaamadu ma hanan lay ceebaysan tahay laakiin oday ah oo meelaha shax iska ciyaaraya ilan odayaal waaweyn meel fog maxaad ka rabtaa wadankan Mareykan marka waqtiga kulaylaha la gaaro waxaad arkaysaa odayaal suuqyada banaankooda fadhiyo oo shax ciyaaraya waxa laga yaabaa inay maskaxda ku weyntahay laakiin ogow meel kasta adduunka qof aan wuxuu taagnayn baa jooga maaha inaan caayayo aflagaadaynayo xaqiiqada dhabtahay waxay tahay inta adduunka aad nooshahay weenad wuxuu taagnaato inaad bini aadam tuugsato waa laga yaabaa hadda maanta qof Soomaaliya hadduu banaanka istaago oo wadada uu tuugsanayo gacmaha hoorsado inaad la yaaban tahay laakiin dad badan baa qurbaha jooga oo waxay tuugsadaan dawladaha ilaan tuugsigu maanta waa casriyeysan wuu isbedelay waraaqay qoran dawladday waxay leeyihiin waxba mas qabsan karo qaar baa waxay sheegtaan inay waalan yihiin qaar baa waxay sheegtaan xanuuno aysan qabin oo sida xoolo ku cuna oo meel iska fadhiya waligoodna horumar nolosha ma gaaraan waxay door bideen inay dadka xantaan TikTok iskaga jiraan meelaha ka qaylqayliyaan hadba sawir yar oo qurxoon iska qaadaan oo internetka dhex dhigaan noloshooda la moodo nolol fiican inay ku nool yihiin laakiin waa khiyaali haddaba maanta waqtiga aad taagan tahay maxaad qabataa isweydii waqtigan hadda videogan aad dhageysanayso waan ogahay dhalinyaro fara badan oo idin ka mid ah inaad jaamacadda ku dhib qabtid inaad iskuulkaad aadayso ku dhib qabtid inaad guriga aad joogtid iyo canaanta iyo waalidka wax kuu sheegay inaad dhibsanayso laakiin waxa wax kuu sheega waa qof ku jecel waxa wax kuu sheega waa qof dantaada ka shaqaynaya noloshayda yaraantaydii markaan eego dadka bini aadamka kuwa xoog iyo canaanta oo waa la yaabi jiray waxaan oran jiray qofkani muxuu isla dhibayaa noloshan aniga iskale ma faraha qaado laakiin waxaan dib ka ogaaday markaan hadda koray oo aabba noqday oo maanta awlaadi ii joogto aan dhihi karo qaangaarkay ku dhow yihiin qaarkood baan waxaan ogaaday qofka ku jeceli inuu yahay qofka wax kuu sheega qofka ku jeceli waa qofka ku canaanta qofka ku jeceli waa qofka runta kuu sheega dad badan waxa jira khiyaali kuugu sheekaynaya maanta dhan waa iska hagaagi doontaa waad qabsan doontaa wali dhalinyara tahay iska baashaal laakiin ha iloobin dhalinyaranimadu waa meesha qofku uu wax ku noqdo video waxa jira aan soo diyaarin doono idin la wadaagi doono 20 jirkaaga maanta aad joogtaa aad buu kuugu adag yahay Soomaan isweydii waa laga yaabaa ama channelka kale inaad mid uun ku aragto 20 jirka marka aad tahay waa lagama maarmaan in aad fahanto noloshu maxay kuugu adagtahay waa muhiim waa laga yaabaa inay kula yartahay laakiin insha Allah markaan videoga soo sii daayo dhageyso waxaan laga yaabaa in wax badan noloshaada uu ka bedelo fikirka aad qabto iyo nolosha sidaad u aragto wax weyn oo saameyn ah inuu kugu yeesho midda lixaadna waxay tahay subaxii goor hore ka jadwalna ku soco labadan aad bay muhiim noloshaada ugu yihiin waliba gaar ahaan markaad qof dhalinyaro ah tahay haddaad aragto qof 30 jirkiisa iska hurda
labaatan jirkiina sidaasuu u hurday ma dhici karta labaatan jirkii waxbaan qabsan jiray qof firfircoon baan ahaa dadka qaar waayadan waxaa batay markuu waxba qabsan kari waayo oo naftiisa caajiska iyo dullinnimada ay dullaysanaysaa markay ka tanbadato inuu yidhaahdo niyahow waxaan u malaynayaa waaba la itaagay micnaheedu waa la isixray oo ina adeerow ama ina adeeray habal lagu taaga ma xume su'aashu waxay tahay markii hore ma socotay qof dhaqdhaqaaqaya oo karti leh oo damiir leh oo hawlkar ah oo himmadiisa iyo hadafkiisa yaqaana oo nolosha wuxuu u dhaqaaqo aan ka soo noqonin ilaa uu soo dhammaystira caqabadii doontaba ha jirtee baa la taagi karaa qofkaasoo kaleaba la odhan karaa qofka waa la taagayo hadduu hadafkiisii isagoo ka burbursan yahayo nolosha ka dhacayo meelaha derbiyada fakarayo iska taagano xaashiyaha ururinaya haddii la arko laakiin bal ka waran khiyaaliga naftaada iyo beenta aad ugu sheekaynayso sidii inaad wax ahayd inaad dhar qurux badan gashan tahay inaad baabuur yaro qurxoon sawir yaro qurxoon aad iska qaado internet ka dhigtay ma tusayso nolosha riyadii aad rabtay noloshaada inaad gaartay amaad xaqiijisay waana sababta dadka lacagta lihi labis qurxoon oo dadkoo dhan ka soo dhex saara ma xirtaan sababtu maxay tahay waayo wuxuu ku faano ama dadka u sheego ama uu dari nusqaan qof ay ku jirto uunbaa dadka wax tustusa haddaysan nusqaani kugu jirin maxaad bini'aadamka ka rabtaaba waad dhammaystiran tahay gudahaaga waxaad og tahay waxaad tahay waxaad og tahay bini'aadamka marka aad ka qarsoon tahay go'aan kasta iyo gool kastoo aad leedahayba in aad xaqiijiso sidii aad ku gaari lahayd haddii ay kugu qaadanaysa inaad oydo hadday kugu qaadanaysa inaad xaaladaha qaar halis u gasho hadday kugu qaadanaysa inaad ku dhabar jabto hadday kugu qaadanaysa xataa inaadan 24 sac seexan macnaha kama wado maalin kasta laakiin marmarka qaar bay dhacdaa dantaadu inay ku baddo in habeen iyo maalin ay isugu soo kaa wareegaan adoon indhaha isku qaban waayo dantaadii iyo wixii aad rabtay maad gaarin maad xaqiijin marka dambeed seexatana waad nasan uun ujeeddadu maaha inaad quusatay haddaba marka aad khiyaaliga naftaada ugu sheekaynayso oo beentaa naftaada ugu sheekaynayso oo inaad wax tahay iska dhaadhacsiinayso laakiin gudahaaga iyo qarsoodigaaga keligaa markaa tahay aad runtaada ogtahay inaad waxba ahayn ceebta intaa la eg in malakulmowd kuugu yimaado oo naftu kaa dhacdo oo ilaahay adduunkan uu kaa oofsado adoo been iyo khiyaalna bannaanka soo dhigiyay gudahaagana baaba ahaa maceeb ka weyn baa jirta weliba gaar ahaan waxaan la hadlaya waa ninka ragga runta jirtaana waxay tahay in badan oo ragga ka mid yahay hadday xaaladoodu isbedeli lahayd in badan oo dumarkeenna ka mid ah xaaladaha ay maanta ku jiraan waa isbedeli lahaayeen laakiin dayaca koobaad meeshuu ka jira waa ragga gabdhahan tusaalahaan maanta qaaqaawana internetka meel walba daadsan ee baridii naasaha ruxaya miyaynan wax la dhashay oo ragga aysan jirin wax qabiilkeeda ka soo jeeda ugu yaraan miyaysan jirin wax damiir uu ku jiro damqanaya way jiraan way buuxan laakiin damiirkii baa dhintay inay u tagaan oo yidhahdaan heblaayo internetka wax badanoo kaloo wanaagsan baad ina adeer walaal aabe adeer abti awowe samayn kartaa ee samee ma jirto waayo iyaga laftigooda kuwa kaloo barida ruxayo dad ay dhaleen bay ku maqan yihiin damiirku halkaasuu ku dhintay in badanoo marka xaaladeenna ka mid a maalin dhaweyta waxaan arkay ninbaa wuxuu soo qoray comment wuxuu yidhi ninka hebel oo kale sida uu ragga u taageero maxaad ragga ugu taageeri weyday hadalkaan ugu jawaabay kan buu ahaa qof kasta oo fikirkaas uu ku jiran aan ugu jawaabayo hooyaday maalintay allaha u naxariistay adduunkan ifka maalintay i keentay anigoo keligii ah bay dhashay fikirka aan soo gudbinayo intaan qalinka iyo warqadda soo qaatay aan qorayana anoo keligii ah baan curiyey ma kula tahay inaan qof bini'aadama kale uga baahna inaan isku dherariyo qofkaasaa waxaa sameeyey adna samee maya ilaahay sibuu kuugu talagalay inaad koobi noqoto oo aad bini'aadamka kale waxa ay sameeyaan ka daba samayso aaway qofnimadaadii wixii qof kale uu ahaa qof kalead koobigaraysay siduu qof kale ahaa unbaad ku celisay sax kuma lihi wax walba oo aan leeyahay bini'aadamaysan oran hadalkan aan ku hadlayo aan isku aadinayo soomaaligan qof bay soo baray qof ka kaaftoomi kara ma jirto bini'aadamka kaloo dhan bal carwaakaasi waxaa dadka ka dhex keentaa qof waxaan la aqoonin oo adduunka dhan ka jirin cidday doontaba ha noqotay qof sameeya adduunka uusan jirin qof la yimid tos ma jiro qof walbaaba meel buu caqliga iyo xikmadda ay ka soo jeedaa meel bay ka soo duxanaysaa haddaba noloshaada marka aad isdul taagto amaad aragta inay wax kaa hallaysan yihiin amaad aragta inay wax kaa khariban yihiin cidda koobaad ee laga rabaa inay saxdaa waa adiga midda toddobaad ee maanta mawduucan ugu dambaysa dadka inta laga helaana ee aadka u yar tahay waa 30 daqiiqo 15 daqiiqo 20 daqiiqo saacad hadba inta awooddaadu ay tahay waxaad naftaada u heshaa wakhti ay fakarayso xisaabtamayso
isdul taagto wax walba oo maanta noloshaada aad ku sugan tahay hadday xun yihiin hadday wanaagsan yihiin naftaadana aad runta u sheegto naftaadu waxay u baahan tahay wakhtiyo ay gooni xaaskaaga ka noqo caruurtaada ka noqo hooyadaa ka noqo aabbahaa ka noqo cid walba saaxiibkaa ka cid walba bannaanka ka istaag xisaabtan waxaadna hor dhigtaa waaqica naftaadu ay ku sugan tahay maaha waaqica adduunka hawl kuu taalla maahan taasu shaqadaada maaha adduunku hadduu isbedelayo iyo hadduusan isbedelaynba isagay u taallaa inta ku nool adduunka maahan dee waa dadka ku nool waxaa isbedelka u baahan maaha adduunyada cirkan iyo dhulkani maalintii la abuuray ilaa hadda sidan bay u taagnaayeen roobku sidaasuunbuu u da'ayey barafku sidaasuunbuu u da'ayey kulaylku sidaasuunbuu u jiray maalmuhu sidaa uunbay ahaayeen haddaad ka dhimatana adduunku weligii sidaa uunbuu sii ahaan roobku ma joogsan maalmuhu magac kale ma yeelanayaan cir iyo dhul midna kuuma ooyayo adiga uunbay kuu taalla haddaba markaad eegto rasuulka sala allahu calayh wasalam qur'aanka aayadihii u horreeyey marka lagu soo dejinayey caadadiisu sidee bay ahayd qaaru xiraa intuu tago ayuu rasuulku sala allahu calayh wasalam halkaa rabbi ku caabudi jiray maanta wakhtigan aynu joognay casrigan waxaa badan in badan oo dadka qaar soomaalida ka mida oo laga yaabo marnaad ku aragtana way jirtaa waxaan la yidhaahdo meditationka maskaxdaada in aad dejiso in badan soomaadan arkin marka dadkeennu aad bay u caradhow yihiin laba kelmadood haddii laysla dhaafo ma fogayn waddankaanan joogno laba nin baa meel ku wada yara kaftantay bannaanka markay u soo baxeen mid baa caradu intay ka tambadatay oo qaaday buu 14 xabadood ku dhijiyey kii kale maxaa ka keenay waxaa dad haddii aynaan noqon dad naftooda la xisaabtama oo gooni noqda oo xaaladaha ilan intaad qaskan adduunyada ku dhex jirto oo marba meel maskaxdaadu ay aadayso wax fara badan kuma kala baxayaan meesha aad joogtid waad isku jaha wareersan tahay inaad gooni noqoto marka oo naftaada aad dareenkaaga isdul taagto maxaa kaa xanaajiya maxaa ku farxad geliya waxyaabaha aad qabato ee hawlaha adduunyada maalintii teebaad ugu jeceshahay teebaa wax soo saarkeedu ugu badan yahay caqabaday doontaba ha lahaatee maxaa badi qoysaska maanta dumiya waayo dadku sidii dareenkooda ay u maarayn lahaayeen oo naftooda intay isu dul taagaan ay isu xakamayn lahaayeen hadallada qaar uga leexan lahaayeen waxyaabaha dee xanafta leh waxyaabaha in badan la isku tuurtuuro waxyaabaha in badan maanta social media laba qof oo isqabi jirtay aad ku arkaysa ka sheekaynayaan maxaa keenay bay kula tahay maxaa jira maxaa qaldan waayo qofku marka xisaabtan la'aani ay jirto oo wakhti naftiisa uu gooni la yahay ilan waxyaabo badan oo ina maanta ina ka dhacaya haddaynu intaynaanba wakhtigaa soo gaarin ka hor aynu ka tabaabulshaysan lahayn oo ka fakari lahayn maxaa iga xanaajiya maxaa iga keeni kara horta inaan waxaasoo kale iraahdo waxaasoo kale inay iga dhacaan hadda tan meeshan aan ka hadlayo maahan qof diinle iyo qof aan diinle kuma xirna dad badan oo diin leh oo maaragtay wanaagsan oo si fiican diinka u fahansan oo waxaa jira markay xanaaqaan akhas ku soo baxa bini aadamka kuwa u liita noqda oo diinta wax xiraya iyo inuusanba wax aqoon baad moodaa uu jaahil yahay haddana diinta wuu kaa badiyaa maxaa jira sidii naftiisa uu u maarayn lahaa dareenkeeda ma yaqaan naftaada marka baro kamana hadlaya markaan bara kuleeya qabiilkaaga iyo magacaaga iyo hooyada ku dhashay iyo aabbaha iyo meeshaad ku dhalatay iyo magaaladaad joogto kama hadlayo waxaan ka hadlayaa dareemadan kala duwan ee keena inaad wax qabato wax ka fariisato naftaada markay caajis dareemayso maxaa dhibka jira muxuu yahay bal isdul taag haddaad aragto naftaadu wixii danta ugu jirta iyadoon qabanayn meesha u baahan inaad dul istaagtaa waa halkaa sideen dareemaa marka hawsha tan ay hor timaado ama aan mudnahay inaan qabto maxay tahay jaraha igu xiran ee iga hortaagan shaygan waxaan kuu hubaa in noloshaada wax badan ay iska bedeli doonaan oo marka aad aragto naftaadu inay wax dib uga noqonaysaba aad garan doonto ood baran doonto sidii aad horey ugu riixi lahayd oo ay hawshaa u qaban lahayd una fulin lahayd naftaaduna mid aad ku qanacsan tahay mid aad ku faraxsan tahay mid aad deganaan ku dareemayso mid inaad adduunkan waxaad u taagnid iyo hadafkaaga aad xaqiijisay noloshaadu inay noqoto inaad dareemi doonto haddaba dhammaantiin intaynu podcast kale dib ugu kulmayno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu